waxaa 7 sano jirsaday isbedelka guud ahaan dalkeena gaar ahaan deegaankeena ka dhacay isbedelkaasi oo 2010 tirsiga dalkeena dhacay tirsiga taariikhda reer galbeedkan 2018 ka dhacay ayaa waxay ku beegan tahay bishii Magaaliid xilligii isbedelku gaar ahaan oo ka dhacay dalka iyo guud ahaan deegaankeenaba oo muddo yar kala dambeysay waxaan ka hadli doonaa isbedelkani muxuu kaga duwanaa isbedeladii hore ee dalka ka dhici jiray maxaa natiijo ah ama maxaa u soo kordhay shacabka deegaankeena Soomaalida iyadana inaan dul istaagno isbedelka sidee uu ku bilaabmay ama qaab noocyo ku bilaabmay waxaan la soconaa dalkeena Ethiopia in dawlado fara badan ay ka soo taliyeen dawladahaasi ay aaminsanayeen mabaadi siyaasi oo kala duwan ay aaminsanayeen ilaa iyo Solomonic dynasty marka laga soo bilaabo dhamaantood isbedelada dalka ka soo dhacay oo dhan waxay u dhacayeen hal nooc bay inta badan u dhacayeen laakiin isbedelkan 7 sano ka hor dhacay uu ka duwanaa isbedeladii hore dalka ka dhacay wuxuu kaga duwanaa ugu muhiimsan waxay ahayd ujeedka isbedelka uu dhacay waxay ahayd in isbedel aan hubaysnayn oo reform ama qaab isbedel ah ku yimid oo reform kacdoon in qaabka wadanka wax loo wado siyaasadda wadanka wax loo wado dhaqaalaha wadanka wax loo wado wada lahaanshaha wadanku qaabku u socdo inayna sax ahayn wadankana halis ku tahay markii la dareemay ayaa isbedel wadanka uu ka dhacay isbedelkaas ma ahayn isbedelada inta badan adduunka ka dhacay ee hubaysnaa ma ahayn wuxuu ahaa isbedel kacdoonadaas dadka aqoon-yahanka iyo labeenta dadku ay hogaaminayeen saluugsanaana qaabkii wadanka loo hogaaminayo dareensanaa inay dhibaatooyin badan ay ka jiraan qaabka wadanka loo hogaaminayo arkayay wadada uu wadankani ku socdo inay tahay wado aan wadadii loogu talagalay ayna ahayn oo doorasay mustaqbalka wadanka haddii uu sidan ku sii socdo inay halis badan ay wajihi doonto taas markii ay dhacday xisbigii la oran jiray EPRDF afarta isbahaysi iyo deegaankeena iyo shanta kale kalena ay ahaayeen bahwadaagta la oran jiray xilliga ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa ra'iisul wasaarihii hore Haile Mariam Desalegn oo isagu iscasilay kadib la doortay isla iyadoo EPRDF tuna ra'iisul wasaaraha hadda wadanka jooga ee Dr. Abiy Ahmed oo xisbigii la oran jiray OBDO ka soo baxay isaguna kadib isbedelkaasi markii miiska ay yimaadeen mas'uuliyiintii iyo dadyowgii inta badan dareemayay in wadankan halis badan ku jiro waxa reform fara badan lagu sameeyay qaabkii wadanka loo hogaaminayay gaar ahaan xuquuqaha dastuuriga ah ee ay qowmiyaduhu leeyihiin wadankiinu saan la socono waa wadan federalic oo based on ethnic waliba nooca federalismka dalku isticmaalo waa federalism ethnic based ama federalism qowmiyadeed weey wax isticmaalay in qowmiyadaha dalka Ethiopia wada jiritaankooda iyo wada joogitaankoodu si adkaado waxay u baahnaayeen in xuquuqaha dastuuriga ah ee dastuurku u sheegay inay ka faa'iideystaan dhamaantood taasi oo ahayd arinta ugu muhiimsan ee isbedelka kadib la sameeyay in ay shacab weynaha reer Ethiopia u sameeyeen siyaasadda shacab weynaha reer Ethiopia u sameeyeen dhaqaalaha wadanka siyaasadda shacab weynaha reer Ethiopia u sameeyeen xuquuqaha asaasiga jiritaankooda xuquuqaha diintooda iyo xuquuqaha dhaqankooda iyo ilaashigaas oo dhan ay u sameeyeen ayaa si dhaba iyadoo dastuurkeena ay ku taalay laakiin isbedelka ka hor xisbigii EPRDF iyo alliance-giisii uu hogaaminayay sidii loo baahnaa ayna uga hirgelin ayaa isbedelka kadib markii la hirgeliyay inta badan qabsoontay inta markaan kaga soo tagno waxaad la socoteen xilliga dalka guud ahaan isbedelku ka dhacay deegaankeena inay jireen tabashooyin xuseeya qaabka guud deegaanka loo maamulayo hogaaminta dadka joogtay ama xisbigii hore la oran jiray xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Ethiopia oo majaraha deegaankeena u hayay kacdoonadaas waxay keeneen in aqoon-yahanka deegaanka Soomaalida hareeraha dibadaha ku maqnaa ka irdhoobay ama ka cararay cadaadisyadii jiray ee aan loo ogoleyn in fikrada iyo dareemada ay qabaan ee ay leeyihiin dadka sidan lagu dhaqaya sax ma aha si ka fiican baa la hayaa ay ka yaaceen ay abaabulo iyo in majaraha shacabka taladiisa lagu soo celiyo wadada deegaankeenu qaadayna wada khaldan ay ahayd wada saxsan lagu soo celiyo ayaa deegaankeena ka bilaabmay waxa isdaba socotaba ugu dambeyn waxa dhacday August 4 inta badan dhacdadii deegaankeena ka jirtay ayay ka dhacday isbedelkaasi deegaankeena dawladda maanta joogta
maanta arrimanaysa 7 sano kadib deegaankeena joogta waxa muhiim ah inaan iyaduna ogaano isbedelka deegaankeena ka dhacay iyo isbedelka dalka ka dhacay farqi baa u dhaxeeyay isbedelka dalka ka dhacay wuxuu ahaa isbedel transition ah oo ay isbedeleen xisbigii talada wadanka hayay ee EPRDF ee TPLF ama xisbigii shucuubta koonfurta wasaaraha ka ahaa أو رئيس الوزراء اللي وده حسب OBDO أو هذا وياه رئيس الوزراء هو تنكينا تحسوا حكيمتي إنه وحي سيجري لسي وضع وحي لومي أما بيلها هانا دي بلوها قاتشيو أو شقوين كي يجدي دولة لكن ماشي كمان بحنا نجري مركز الديان كنا وصلنا نقولنا حالة الديان كنا خد على واحد حالتها كدون أوتوماتيكالي وكدونيد ديان كانوا وحنا نقضي ديان جبيهان تبى بربري deegaan muwaaqirka dawladnimo ay jirtay min deegaan min qabalay systemka oo ka baxay bay noqotay arrintaana waxa keentay hogaamintii dalka deegaanka gacanta ku haysay oo door biday inaan legacy dawladnimo ama nidaam dawladnimo aan deegaanka ka sii harina ayna iyaga waxba ka dambeyn qaabkay wax u bilaabantay marka waxa laga yaabaa shacabka iyo dadyoga kale ee daawanaya laftoodu maanta 7 sano ka hor isbedel markaan barbar dhigayno deegaankeena halku ka yimid markaa leenahay isbedelka wadanka Itoobiya ka dhacay transition of power baa dhacay inaga laakiin transition of power ma dhicin deegaankeenu wuu duumay baan oran karnaa halka laga soo bilaabay August 4 taa marka leenahay waxaan u jeednaa waxa jiray muwaaqirka ama hayrarka dawladnimo deegaan gobol maamul magaalo degmo qabaleeyo structure dawliyo dhameystiran baa leenahay structure-daas waxay noqdeen structure hal mar kaga baxa taariikhda noqday ama hal mar baabaa markaynu eegayno in isbedelka deegaankeena ka sheekeynayno xisaabta waa inaan ku darsano ama maskaxda ku hayno deegaankeenu isbedelka dalka ka dhacay isbedel kamid kama dhicin isbedelka dalka ka dhacay wuxuu ahaa peaceful transformation of power buu ahaa laakiin keenu ka duwanaa deegaan baabaay burburay dawladnimadiisa ayna jirin ayaa dib loo yagleelay oo la sameeyay taa marka leenahay maxaan uga jeednaa intii ni joogtay intii kalena de maqaalo kuma aha 7 sano ka hor magaalada Jigjiga caasimadeena nin walba naftiisa uu gala cararay iska daa dawladnimo iyo nidaam sii jiray taana waxa dareemaysaa qaabkii talada dadka hayay ama gacanta ay ugu jirtay inay ugu talagelin qaab si la xajeclale ama dalkan cid ka soo horjeedsan karto oo ogol inay ogolaadaan ay ahayd in fikirka ay wadanka ku hogaaminayaan fikir ka duwan la sameyn karo laakiin ma dhicin waxa dib loo soo doortay madaxweyne deegaankeena hadda jooga mudane Mustafa Maxamed Umar deegaan maran baaba'san dawladnimadii ay meesha ka baxday kala dambeynta ay meesha ka baxday nidaamkii jiray oo meesha ka baxay ayaa isbedelkeenu ka soo bilaabay waxa ugu horeysay talaabooyinkii ugu horeysay la qaaday ay hayeen in dib loo soo celiyo haykalkii dawladnimo waxa ugu horeeyay in golaha kaabineetka deegaanka Soomaalida dib loo soo xulo golihii kaabineetka deegaanka Soomaalida la soo xulay qaab waxa loo soo xulay dad hogaamin ah oo dhalinyaro ah oo deegaanka ah oo aqoon badan u leh hogaaminta la xajeclale Soomaalinimo badanna ay ku dheehan tahay dalkan Itoobiya ee weyn ee qoomiyadaha badan leh hadii aan arinta aragtida qoomiga Soomaaliga aan xoojisnayn ama aan la xoojina wax wada qaybsiga dalkeena inay adkaanayso fikir ah iyadoo laga aaminsan yahay ayaa waxa la soo xulay hogaamin dhalinyareed oo Soomaali ah oo lagu tuhmay inay deegaanka ay ka samata bixin karto xaaladii adkeed ay ku jiraan kadib waxa la guda galay in la sameeyo muwaaqaradii kale deegaanka inta ka dambeeyay gudoomiyaasha gobolada la magacaabay gudoomiyaasha degmooyinka la magacaabay structure-ki in dib u noqdo hadana laga shaqeeyay oo structure-ki dawladda ay noqoto dawlad cagaha ku taag waxa xusud mudan xilliga hadda ogeedeen iyo hadii kalaba in amniga deegaankeena ama caasimadda deegaankeena maanta joogno amnigeeda ay gacanta ku hayaan ciidamada federaalka Itoobiya ciidamada deegaanka Soomaalidu ayna gacanta ugu jirin ayna ku hayeen baxsataa markaynu isbedel ka hadlayno halkaynu ka nimidnay waa inaynu si fiican sawir fiican aan ka haysan karno waxa caqabadihii ugu waaweynaa ee lala kulmay kamid ahaa nidaamkii ka horeeyay nidaam dib u curasho la oran jiray oo madaxafiisyada degmo Hiblaayo kale ay tagayeen ayaa jiray waxa waqti badan qaadatay in muwaaqirka dawladnimada dib loo soo yagleelo la soo celiyo gaar ahaan degmooyinka magaalooyinka oo nidaamkii ka horeeyay dib u curasho ahaa in hadana la ilaahdo degmo walba gudoomiyaheedii iyo dadkii deegaanka deganaa ayaa maamulkii laga soo xulay marka waxaad halka ka arkaysaan culays fara badan in ay xukuumadda hadda jirta ay wajahday in ay cagaheeda ku istaagto ama ku yagleesho nidaam dawladeed oo hanan kara shacabka deegaanka Soomaalida adeegii dawladnimada bixin kara marka isbedelka deegaankana ka dhacay arintaas
ayaa ugu muhiimsaneyd oo de waxyaalihii dhacdooyinka soo dhacay ay ka mid ahaayeen. waxaa kaloo xusid mudan in deegaankan calaamadihiisii iyo dhaqamadiisii iyo diintii dadku ay lahaayeen ay aaminsanaayeen inta badanba si bareedha loo baabiinayay, dhaqankana hawada looga saaray, iyadoo loogu talagalay in jiritaanka dadkani mustaqbalka halis geli doono. waxaa markiiba dib loo soo yeegleelay in astaamaha qowmiga Soomaalinimada ee ugu horeysa calankeenu ee ay ku xigtay heesta calanka deegaanka Soomaalida in dib loo sameeyo oo golayaasha baarlamaankeena iyo golayaasha kabineetka ay ansixiyaan oo arrin muhiim ay ahayd identity-ga Soomaalinimada sheegaysay calaamadeeni iyo astaamaheeni Soomaalida lagu yaqaanay ahaayeen oo iyadana la keenay oo aad iyo aad muhiim u ahayd xilligaas la sameeyay. waxaa kaloo iyadana dib loo sameeyay in reform lagu sameeyo ama isbedelo iyo tababaro badan loo qabto hay'adaha amniga deegaankeena Soomaalida oo iyaguna xilligaasi hay'ado amni oo u qaab eeka inay cid gooniyo u adeegayeen ee aan ahayn hay'ado amni oo deegaankan amnigiisa iyo nabadgelyadiisa gacanta ay ugu jirto. transition kasta oo yimaadana cidda transitionka ku soo timaada u wareejiya ayna ahayn hay'ado amni oo halis abuuri karayay xilligaasi in la wajaho in dib haddana loo qaabeeyo reform badan lagu sameeyo dib iyaguna u soo noqdaan oo ay noqdaan deegaan hay'adaheeni amnigu ay gacanta ku hayaan kala dambeyntii iyo nidaamkii iyo nabadgelyadiina ay soo noqoto. waxaan is leeyahay arrimahaasi arrimo aad u culus bay ahaayeen. waxyaalaha kale ee ugu muhiimsan ee la sameeyay waxaa ka mid ahaa in dhaqankii dadka Soomaalida ah oo laga didayay lagana cararayay ay dib u soo noqdeen. waxaa kaloo iyadana mudnaanta leh oo iyadana muhiim ah oo dadku inay ogaadaan aan u baahanahay in diinteena suuban ee aynu aaminsanahay ku dhaqankeeda iyo barashadeedu oo hawada ay ka baxday dadkana lagu ugaarsanayay maadaama ay diin faafinayaan ama macallin diimeed uu yahay. maxaabiis fara badan oo culimo diimeed ah oo masaajidada tukan jireen ay xabsiyada ku jireen in iyaga laftoodii xabsiyadii laga fasaxo. kaliya ta maxaabiista ku jirta xabsiyadu ma ahayn diin laakiin waxay ahaayeen maxaabiis fara badan oo u xiran dawladda xilliga jirtay maxaa looga fikir doonaa. dhammaantood maxaabiistaasi waxay heleen xorriyadoodii ba heleen, xorriyad diimeed baa la helay. waxaa kaloo iyaduna mudnaan leh oo maanta halkan iyadana ka cad in warbaahinta madaxa bannaan keedii ay qaadatay oo maanta kamaradaha ay hor yaalo dhan baad arkaysaa inay yihiin kamarad walba ay ka socoto warbaahin gaar loo leeyahay iyo warbaahinta deegaanka Soomaalida ay isku dhex jiraan. laakiin barigaas ma jirin xorriyadda warbaahinta gaarka loo leeyahay inay cabiri karaan dareenka iyo hogaaminta iyo qaabka deegaanka loo hogaaminayo oo waxyaalaha inta ugu faraha badan la isbedelka ka yimid